maxay tahay sababta wadada ugu quruxda badan ugu caalamisan uguna dheer bartamaha Afrika loogu magac daray Soomaaliya wadankee ayay ku taalaa wadadan caalamiga ah ee Somali Drive yaa dhisay oo maalgeliyay goormee ayaa la dhisay dhammaan xogahaas oo dhan waxaad kaga bogan kartaa muuqaalkan balse marka hore haddii aad ku cusub tahay channelkeena waxaynu ka codsanaynaa inaad subscribe tiraahdo gambaleelka riixato si muuqaaladu ay kugu soo dhacaan mahadsanideen wadadan quruxda badan ee idin muuqata waxa ay ku taalaa mid kamid ah wadamada dhaca Afrika gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Monrovia dalka Liberia waxaana lagu magacaabaa wadadan caalamiga ah Somali Drive wadadan ayaa ah wadada ugu dheer uguna caalamisan ee dalka Liberia waxa ayna martaa bartamaha magaaladaasi Monrovia ee xarunta u ah wadanka waxay hormartaa xarunta dhismaha weyn ee UN-ka waxayna isku xirtaa dekadda iyo eelaboorka caalamiga ah ee dalka Liberia waxa ay ka kooban tahay ilaa 4 qad oo caalami ah amba 4 wado oo is saaran oo laba ah waana mid kamid ah wadooyinka ugu quruxda iyo bilicda wanaagsan iminka wadankaasi waxa ay leedahay dhowr buundo waxa ay dul martaa wabiyo waaweyn iyo harooyin waana wado aad u qurux badan dhirir ahaan waxa lagu qiyaasaa wadadan quruxda badan 13 kiiloomitir waxa dhisay mid kamid ah kambaniyada waaweyn ee dalka China shaqaale badan oo Chinese ayaana waqti geliyay laakiin cid walba waxay isweydiinaysaa wadadan quruxda badan ee Somali Drive sababta Soomaaliya oo xilliga burbur iyo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin loogu magac daray magaca Somali Drive waxa la bixiyay sanadadii 70-meeyadii waxaana kala bedeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Liberia xilligaasi 70-meeyadii Soomaaliya waxa madaxweyne ka ahaa madaxweynihii kaligii taliska ahaa Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku bedeshay wadada kale ee loogu magac daray Via Liberia ee dhacda degmada Waabari ee gobolka Banaadir waana taariikh fog oo ku saabsan kala bedelasho magacyo wadooyin si la isugu xiro xadaarad ahaan iyo taariikh ahaan wadamada Afrika gaar ahaan dalalkii markaasi xiriirka wanaagsan uu ka dhaxeeyay ee Soomaaliya Liberia iyo kuwa kale oo wadooyin ku magaca magaalada Muqdisho ay ku yaalaan markaynu ka soo gudubno milicsiga quruxda iyo hanaanka wadadan loo dhisay dad fara badan oo Soomaaliya iyo waliba kuwa kale oo dalka Liberia u dhashay waxay isweydiinayaan magaca wadadii Somali Drive lagu bedeshay ee Via Liberia muuqaal ahaan iminka siday u taalo waxaynu ku soo gudbin doonaa muuqaalo iyo taariikho kale oo ka qarsoon oo Soomaaliya ay hodan ku tahay balse haddii aad ku cusub tahay channelkeena nagu soo biir The two-way four-lane scheme is adopted for the project. The project starts from the north of the 12th and 14th Street, runs northeasterly along the existing road before crossing the Mansurado River via bridges. Passes through the wetland, connects with existing Cassily Boulevard Street. And then keeps extending northeasterly and terminates at Somalia Drive intersection with a total length of 6.251 kilometers. The project includes 2 major bridges with a total length of 380 meters. The superstructure is provided with a prefabricated reinforced concrete T-girders with a span of 20 meters, and the substructure is provided with the column piers, abutments of ribbed slab type, and pile foundations. For the project, it is planned to build a tow station with 3 entrances and 3 exits on the north side of the Macerado wetland. Due to the implementation of the project, a channel connecting the north and south regions
has been built in central Monrovia to effectively alleviate the traffic congestion and improve the traffic efficiency of Monrovia. Therefore, this channel is of great significance to Monrovia. maxay tahay sababta wadada ugu quruxda badan ugu caalamisan uguna dheer bartamaha Afrika loogu magac daray Soomaaliya wadankee ayay ku taalaa wadadan caalamiga ah ee Somali Drive yaa dhisay oo maalgeliyay goormee ayaa la dhisay dhammaan xogahaas oo dhan waxaad kaga bogan kartaa muuqaalkan balse marka hore haddii aad ku cusub tahay channelkeena waxaynu ka codsanaynaa inaad subscribe tiraahdo gambaleelka riixato si muuqaaladu ay kugu soo dhacaan mahadsanideen wadadan quruxda badan ee idin muuqata waxa ay ku taalaa mid ka mid ah wadamada dhaca Afrika gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Monrovia dalka Liberia waxaana lagu magacaabaa wadadan caalamiga ah Somali Drive wadadan ayaa ah wadada ugu dheer uguna caalamisan ee dalka Liberia waxa ayna martaa bartamaha magaaladaasi Monrovia ee xarunta u ah wadanka waxay hormartaa xarunta dhismaha weyn ee UN-ka waxayna isku xirtaa dekadda iyo eelaboorka caalamiga ee dalka Liberia waxa ay ka kooban tahay ilaa 4 qad oo caalamiya amba 4 wado oo is saaran oo laba ah waana mid ka mid ah wadooyinka ugu quruxda iyo bilicda wanaagsan iminka wadankaasi waxa ay leedahay dhowr buundo waxa ay dul martaa wabiyo waaweyn iyo harooyin waana wado aad u qurux badan dhirir ahaan waxaa lagu qiyaasaa wadadan quruxda badan 13 kiiloomitir waxaa dhisay mid ka mid ah kambaniyada waaweyn ee dalka China shaqaale badan oo Chinese ayaana waqti geliyay laakiin cid walba waxay isweydiinaysaa wadadan quruxda badan ee Somali Drive sababta Soomaaliya oo xilliga burbur iyo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin loogu magac daray magaca Somali Drive waxaa la bixiyay sanadadii 70-meeyadii waxaana kala bedeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Liberia xilligaasi 70-meeyadii Soomaaliya waxaa madaxweyne ka ahaa madaxweynihii kaligii taliska ahaa Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku bedeshay wadada kale ee loogu magac daray Via Liberia ee dhacda degmada Waabari ee gobolka Banaadir waana taariikh fog oo ku saabsan kala bedelasho magacyo wadooyin si la isugu xiro xadaarad ahaan iyo taariikh ahaan wadamada Afrika gaar ahaan dalalkii markaasi xiriirka wanaagsan uu ka dhaxeeyay ee Soomaaliya Liberia iyo kuwa kale oo wadooyin ku magaca magaalada Muqdisho ay ku yaalaan markaynu ka soo gudubno milicsiga quruxda iyo hanaanka wadadan loo dhisay dad fara badan oo Soomaaliya iyo waliba kuwa kale oo dalka Liberia u dhashay waxay isweydiinayaan magaca wadadii Somali Drive lagu bedeshay ee Via Liberia muuqaal ahaan iminka siday u taalo waxaynu ku soo gudbin doonaa muuqaalo iyo taariikho kale oo ka qarsoon oo Soomaaliya ay hodan ku tahay balse haddii aad ku cusub tahay channelkeena nagu soo biir The two-way four-lane scheme is adopted for the project. The project starts from the north of the 12th and 14th Street, runs northeasterly along the existing road before crossing the Monserrato River via bridges. Passes through the wetland, connects with existing Cassily Boulevard Street. And then keeps extending northeasterly and terminates at Somalia Drive intersection with a total length of 6.251 kilometers. The project includes two major bridges with a total length of 380 meters. The superstructure is provided with a prefabricated reinforced concrete T-girders with a span of 20 meters, and the substructure is provided with the column piers.
abutments of ribbed slab type, and pile foundations. For the project, it is planned to build a tow station with 3 entrances and 3 exits on the north side of the Macerado wetland. Due to the implementation of the project, a channel connecting the north and south regions has been built in central Monrovia to effectively alleviate the traffic congestion and improve the traffic efficiency of Monrovia. Therefore, this channel is of great significance to Monrovia.